iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa ay dunida ku sii baahayso cabsida laga qabo cudurka halista ah ee coronavirus oo ay u geeriyoodeen in ka badan 19,000 oo ruux ayaa waxaa shir wadatashi ah oo ku saabsan ka diyaargarowga cudurkan magaalada Muqdisho ku yeeshay wasaaradaha caafimaadka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed. shirka oo muddo 2 cisho ah socon doona ayaa waxaa diiradda lagu saaray qorshaha Soomaaliya kaga aadan cudurka COVID-19. mas'uuliyiinta ka qaybgalay shirka ayaana isla qaatay in ay muhiim tahay in la badiyo wacyigelinta bulshada iyo in si wadajir ah la isaga kaashado ka diyaargarowga cudurka coronavirus oo saameeyay in ka badan 160 dal iyadoo Soomaaliyana dhawaan ay diiwaan gelisay kiiska ugu horeeyay ee cudurkan, taas oo kaliftay in dawladda Soomaaliya ay qaado talaabooyin badan sida joojinta duulimaadyadii caalamiga ahaa, diyaarinta goobo karantiil iyo isbitaallo lagu dabiibo dadka uu cudurka asiibo. Dictoressa Fawziya Abikar Nuur, wasiirka caafimaadka Soomaaliya oo shirka furtay, ayaa sharaxaad ka bixisay ujeedooyinka muhiimka ah ee kulankan loo qabtay. cudurkan cudur halis ah waa Ilaahay ha naga haayo. halkaysan sheegna Soomaaliya hadii aan ilaa al'aan la ogyahay la xaqiijiyay halkii keesna qofkii aad inuu u fiican yahay oo maalina uusan qandanin ilaahayna waxaan ka baryaa inta dhiman waqti yaraaba u dhiman waa inuu caafimaad siiyo oo maaragtay jirkiisa uusan ku jirin. annaga wasaarad ahaan maadaama waxaan oo kale weligan diyaar aanan u ahayn runta aan isu sheegna waa wada aan fariirnay waxaan isugu wacnay dadkii deeq bixiyayaasha wasaaradda maaliyadda waxaan ku niri wax allaala wixii aad noo qoondeyn kartaan hana loo qoondeeyo qorshe buuxa oo qaran oo loo wada dhan yahay inaan baahideena ku salayno oo aan diyaarino waqti ay qaadatay laakiin at least wax la isugu tagay oo la diyaariyay baahidii saasaan door bidnay inay muhiim aad tahay inaad noola ogaataan si hoose qorshihii maanta aan soo bandhigno aan isfikrad dhaafsano. wasiirada caafimaadka ee maamul goboleedyada ayaa dhankooda tilmaamay inay lagama maarmaan tahay in meel looga soo wada jeesto halista cudurka COVID-19. dadaal badan waa wadnaa koonfur galbeed ahaan hadda waxaan rabnaa isbuucyadan soo dhow in siinka dheer in aan afkooda shaqaale aan geyno oo dadka magaalada Muqdisho ka baxaya afgooya dhankaas aadaan afkooda inaan baaritaan ku sameyno degmada marka wacyigelina ka bilawnay wacyigelina wadnaa wili shaqadii ma bilaaban sida u dhaqsiya badan oo bilaawayna insha Allah iyo baraaw wasaaradda marka dadaalkaas ay wadaa idinkana waa maasantihiin. waxaa laga maarmaan sida wasiirka caafimaadka federaalka Fawziya ay sheegtay iyo akhyaarta kale ee horeysayba in meel looga soo wada jeesto taasi muhiimadda ay leedahay runtii waa mid aad u weyn xanuunkan in meel looga soo wada jeesto si kasta oo aynu xuduudaha u adkayno si kasta oo aynu diyaaradaha iyo garoomadooda u adkayno haddana Soomaaliya dhexdeeda cid kale xadidi karta ama wax kala sameyn kartaa ma jirto. dawo ma laha cudurku marka qof walba inuu gurigiisa joogo oo gacmaha iska dhaqo wax ka fiican ma laha meel la geyn kara ma laha cudurrada kale la daaweyn waaye kana wax loo qaban kara ma laha waa ka sii liitaa isbitaallo lagu karantiilo hadda hal meel baanu diyaarinay 2 meel actually gaalkacyo iyo Dhuusamareeb haddaan nahay annagu Hirshabeelle يعني وان دلالني كو هرتو waxaa isu tagay oo golihii wasiirada oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkii ay hogaaminayaan waxaa meeshaas yani amar lagu baxshay in la qaato awaamiirta ka soo fulaysa wasaaradda caafimaadka federaalka. in ka badan 400,000 oo qof ayuu asiibay cudurka safmarka ah ee coronavirus waxaana dadka u dhintay la soo wariyay inay ku jiraan dad Soomaaliyeed oo ku nool dalalka dibadda. dawladda Soomaaliya ayaana hadda wada dadaalo isdaba jooga oo looga diyaar garoobayo halista cudurkan. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.